السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة maanta waa qisad xanuun badan oo at the same time oo la yaab leh. Please horta subscribe iyo like ii sameeya. qisadeena maanta waxay ka sheekayhee caa'ilo oo ku nooleed Austria. caa'iladaas aabahood waxaa la yiraahdaa Joseph Fritzl, aabaha oo xiray gabartiisa muddo 24 sanadood. Joseph Fritzl wuxuu dhashay 9 Abriil 1935. wuxuu ku dhashay magaalo la yiraahdo Amstein oo ku taala Austria. Joseph Fritzl wuxuu ku dhashay cilaaqo oo غير sharci ah. macnaheeda hooyadiisii aabiis ayagoon isguursanin ee dhaleen wiilkaas. kadibna wuxuu ku soo noolaa nolol oo faqri ah, laakiin wuxuu go'aansaday inuu wax barto. dowladana ka bixiyaysa waxbarashadiisa. markuu wax bartay wuxuu noqday injineer oo dhismaha muhandis oo noqday madani. markuu noqday muhandis madani wuxuu ka baxay magaaladii oo degnaa. wuxuu aaday magaalo kale oo la yiraahdo Linz oo ka bartay handasada. xaggan wuxuu ka shaqay jiray as assistant engineer camal oo shaqeeyahay. hada af Soomaali u dhigaayo waxaa waaye caawiyaha injineerka. wuxuu caawiyay injineerada kale soo saas uga shaqeeyay sharikadaas. sanadkii 1956 cumrigiisa wuxuu ahaa 21 sano. wuxuu guursaday gabar yiraahdo Rosemary, iyadana 17 jir ahayd gabartaas. sidoo ugu shaqeeyay shaqadaas injineernimada caawiyaha injineerinta wuxuu noqday senior engineer caadi uu noqday. shaqadiisa asaa u madax banaanaa, asiga oo personal business sameeyay. shirkad uma shaqeeyaynin, lacag fiican oo yeeshay. wuxuu noqday nin oo lacag haysto oo qani ah. wuxuu sameeyay guriyo wuxuu ka gatay meesha oo ku dhashay markii horeba. gurigana asiga dhistay, asiga wax kasta ka sameeyay, asaa dhisay kaligiis, qof kale ma ku caawinin. wuxuu dhaliyay 7 cunug. wuxuu ka dhaliyay 7 cunug Rosemary, gabartii oo guursayay asigoo 21 jir. ilmihiis aad u fiicnaayeen, laakiin asiga xoogaa wuu xanaaq badnaa, wuu qaylo badnaa, especially gabartiisa oo la yiraahdo Elizabeth. aad uu la dhaqmi jiray suxun, oo dili jiray, oo ku qayli jiray, nafteedu nacsiiyay. mar walba suxun uu la dhaqmi jiray. gabartii xoogaa way soo weynaatay. waxay dhalatay 1966 dhalatay gabartaas. markay soo weynaatay xoogaa ay gaartay 11 sano, gabartii xoogaa xaalad nafsiya inay gashaa laga dareemay. iskoolka markay aado xoogaa way faraxsantahay, laakiin iskoolka markay ka soo noqotaba farxadeedu dhan way dumay, iyadoo dhan si kale noqohay. sababtana waa la fahmi weysnaa muddo dheer. markii la gaaro 1983 Elizabeth guriga ka carartay. markay ka carartay askarta soo qabteen, gurigeeda u soo celiyeen laano wili way yaray, teenager ahayd. waxay ahayd taxta sin القانوني. taxta sin القانوني waxa markuu qof cunuga oo gaarin cumri oo asiga ismaamuli karo oo 18 sano gaarin. saas awgeed waxaa loo soo celiyay guriga aabaheed iyo hooyadeed, iyadana ma sheegin sababta ay u carartay. markii la soo celiyay Elizabeth, askarta soo celisay ee guriga timide, aabaheed wuxuu ku yiri balana ka qaada inaa mar dambe kugu xanaaqin, inaa mar dambe ku dilin, inaa mar dambe si xun kula dhaqmin. kadib markii la gaaray sanadkii 1984 aabaheed Elizabeth wuxuu ka shaqay jiray waqtiyo badan qabu macnaheedu waxaa waaye guriga hoostiisa meel store camal ah ay ka sameeyaan dadka ajaanibta. Austria iyo America iyo dhulalkan oo dhan guryo waaweyn leeyihiin. guriga hoostiisa waxay ka sameeyaan meel yira basement. meeshaas waxaa waaye waxay dhigaan alaabaha oo ay u baahneen ama alaabaha oo oldka ah oo loo baahnayn in la isticmaalo, ama mararka qaarkoodna shaqo madanan asiga waxaa waa handyman, yani gacanta ku sameeya wax walbo. waxaa muhandis, maadaama muhandis yaa wuxuu u baahan
baahanyaa qol keligiis oo faaruq ah oo ku shaqaysto. Sanadka 1984 Fredzel wuxuu ka shaqayhayay guriga hoostiisa. gabartiisana waxay fadhiday qolkeeda walhay dhigahaysa oo u tagayay. wuxuu ku yiri Elizabeth ma caawin kartaa, waxaa u baahanaa ilbaabkan inaan qaado hoos u dejiyo, kaligayna ma deji kari, ilmaha kalena way hurdayaan. waxay ku tiri okay, way soo raacday. markay soo raacday la soo dejisay ilbaabka meesha soo dhigtay guriga hoostiisa la dhigay, isku dayday inay baxdo. wuu qabtay, afka wuxuu ka saaray maado oo seexso. markay suuxda kadib wuxuu geystay meel oo la ogeynin oo 4 ilbaab loo maraayo oo guriga hoostiisa ah oo cidda iyo dowladana ogeynin. ninkan oo aabaheed u qorsheynayay inuu saas sameeyo oo gabartiisa meeshaas ku xiro mar hore muddo sanad ah. wuxuu sameeyay meel dhan oo qof ogeynin oo meel yariis laakiin oo guriga hoostiisa aad markii ay soo naaxday way yaabtay, gabartii way weysa, asigoo ka tegay. hooyadeeda wareertay oo tiri maya, gabarteydii waa baxday. waxay tiri gabarteydii intaas ma maqnaa karta iyadoon ii sheegin. askartay u tagtay, askartay ku dacweysay. askartankay ku dacweysay tiri wiilka gabarteydii iga maqan intaasoo muddo, I don't know why ima sheegeen wax. askartii waxay bilaabeen inay raadiyaan. Fredzel wuxuu sameeyay, wuxuu u tagay gabartiisii, wuxuu ku yiri dhageyso, haddaa warqad qori weysid, aadhihi weysid, aniga waa caafimaad qaba, aniga maskaxdeyda ku tagay, anaa raba inaad tag. warqadii uu qaadiyey. markuu qaadiyey warqadii wuxuu aadiyey meel fog oo gobol kale camal uu aadiyey. warqadii xaggaas ka soo diriyo, asiga u soo diray. wuu soo noqday. markuu soo noqday bio boxkiisoo yimiday oo furiyey. wuxuu yiri risaalada isoo dirto gabarteyda. askartii u geeyay, askartinka u geeyay waxay dhaheen okay khalaas, way xireen qadiyada. markii Rosemary ka sabartay gabarteeda oo askartana ay keeska xirtay, wuxuu bilaabay Elizabeth aabaheed inuu u tagiyo maalin dhaaf oo cunto u geeyo oo la xoogo. wuxuu xoogi jiray maalin dhaaf kasta muddo 3 sannadood. 3 sannadood kadib uur yeelatay. markay uurka yeelatay oo asigana ogaayay inay uur leedahay, wuxuu ku yiri waxaa kuu keenaa buugaas wuxuu ku baraa sida aad u dhali lahayd, waxaana kuu keenaa maqas saahadhow markaa isdhalisid iskaaga jirtid cunuga. waxaa kuu keenaana shukumaan cunuga ugu qubaysid, waxaana kuu keenaa biyo kulul cunuga jirkiisa ugu dhaqdid. Elizabeth markay gaartay waqtiga dhalmada, sida ay buuga uga baratay ay samaysay iyada isdhalisay keligeed iyadoo qof kala caawinaynin. waxayna dhashay gabar, waxay u bixisay gabartaas Christian. gabartaas waxay dhashay 1988. gabar caafimaad qabtay ahayd. waa ku faraxday inay gabar dhashay maadaama ay cido dishay. meesha ay joogtana basementka aad u ur badnaa, meel uraysay ahayd. musqusha iyo jikada kulliga isku dhex yaaraan, space weyn ma laho. maca daalik iskaaga adkaysatay noloshaas xanuunka badanna iskaaga adkaysatay. haddana mar kale uur yeelatay. bacdeen way dhashay 1990kii. waxay dhashay wiilka waxay u bixisay Stephen. sidoo kale u dhashay keligeed, aabaheedan ka dhalay, qof ogna ma jirto. haddana mar kale uur saddexaad yeelatay. uurkii saddexaad yeelatay waxay dhashay 1992. waxay dhashay gabar yiraahdo Liza. xoogaa ma caafimaad qabin, way qalloocneed, dhabarkaa ka qalloocnaa. waxay u baahneed in camaliye loo sameeyo weli si degdeg ah. markay dareentay inay saas u xanuunsan tahay gabarteeda, aabaheeda ka bariday inuu isbitaal geeyo. aabaheed wuxuu ku yiri hal xalaa jirto aan samay karo,
halkaasna waxaa waayey inaa warqad qortid aad tiraahdid aabahooyo sorry idinma imaanin laakiin ma idin imaan kari laakiin gabartayda idin soo dhiibay gabarta waa iga xanuunsan tahay waxaa ku daaweeyana ma laho adinka ii koriya adinka inku ogaha gabartan aadaan u mahadsantihiin saasay qortay warqadii uu qaaday gabartii yariistana salladuu ku dhex riday guriga hortiisoo dhigiyey markuu saas sameeyey cabaar kadib guriguu furiyey ilbaabkiisa subaxdii markuu shaqada aadaye wuxuu iska dhigay nin oo helay asiga oo cunugaas ogeyn baynu banaanka yaalo wuxuu ku yiri naagtiisa wacay wuxuu Rosemary allah cunugan wala keena muu qofka noo keenay way fiiriyeen cunugii waxay arkeen warqada la socoto warqadii waa warqadii ay qortay Elizabeth ee dhehayso cunugan uu iga xanuunsan yahay ana umahaayi wax aan ku daaweeyo way wada cunugii isbitaalay geeyeen amaliyada loo sameeyay way raysatay Liza waxay go'aansadeen hooyadii aabaha in Liza ay iska korsadaan maadaama ay gabartooda sida hooyada u maleysay inay Elizabeth ka mashquulsan tahay nololka ku nooshay ee faadigu ahayn bayna ilmeeda korsato waxay go'aansadeen in ay ka cunugaas korsadaan Liza oo saas lagu haayo kadib sidii oo kale mar kale uur yeelatay Elizabeth markii kale uur yeelatay waxay dhashay 1994 waxay dhashay gabar liira Monica markay dhashay gabartaas Monica aabeed wuxuu ku yiri Monica waxa u geeyaa walaasheed Liza inay la soo korto anaka kor ku hayhayno adiga aad waxaa haysataa gabartan kale iyo Steven Christian iyo Steven kula joogo anakana Liza iyo Monica aan ku hayno meeshan cariiri in ku noqahe ilmahaagana meel fiican ay ku korayaan aduunay arkayaan walahay barahayaan iyadoo absahayso iska ogolaatay waxay istir at least hada adii noloshan xun ku noolaaysid ilmahaagana kulligood iyo kula noolaan noloshan xun waxay ku tiri okay markay ogolaatay wuu wadiyay wuu qaadiyay sidii oo kale salada ku ridii warqadii qortay warqadii la raacay saladii hooyadii aragtay waxay u maleysay sidii oo kale inay sameysay asigana wuxuu saas u sameeyay maaha jacayl ilmaha uu qabo ama ilmaha inuu rabi nolol fiican oo nololsiyo maya ay dawladda lacag ku sii hayso ilmahaas haduu yiraahdo ilmahaas anaa korsaday gabartayda igu soo tuurtay laakiin hadii ilmaha oo la ogeynba guri hoostiisa ku jiraan lacag ma lagu sii haayo asiga waxa uu cad lacagtaas oo lagu sii haayo so anyway hadana mar kale uur kale yeelatay Elizabeth uur kale markay yeelatay 1996 ay dhashay waxay dhashay mataano waxay dhashay Alexander iyo Michael 3 beri gudahooda uu ku dhintay wuu xanuunsayay idoo ku dhaysay isbitaal aan geeyay sibuu ka yiraasiga wax ma la awo fiicnaaha cunug yar waa isku fiicnaan doona anyway wardens isla markii 3 maalin kadib Alexander soo qaaday asuu Alexander wada xageeha qor warqadii qortay asiga faa'iidada loo karabiya wax kale uma jeedo 400 euro oo ku helaayay cunug kasto oo asiga koriyo saas awgeed uu dhahay korageeha hadana mar kale Elizabeth uur yeelatay uurkeeda laakiin markaan xogaa uu ka soo daahay ilmihii hore 2002 waxay dhashay wiil oo Felix yiraahdo wiilkaas iyada haysatay waxay tir kor igama geeysid hadda 3 cunug aabeed iyo hooyadeed u kariyaan oo kale Liza iyo Monica iyo Alexander iyadana waxay haysataa gabar liira Christian wiil liira Steven iyo wiil liira Felix so 3 haysataa ay kala 3 u hayaan ilmaheeda oo la noolaayeen aabaheed iyo hooyadeed nolol fiican ay ku noolaayeen waxbarasho fiican ay heleen nolol iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo wax kastaba wax kama maqneen laakiin iyada iyo 3deeda cunug oo kula noolaayeen meesha wasakhda badan urka badan oo yaraanta badan leh
xanuuno badanaa ku dhaceen ilmihii, iyada naftirkeeda waa iska xanuunsaneed laakiin way iskaaga adkaysanayeen. asiga antibiyootik iyo waxyaalo aabbaa u keeni jire way iska qaada jireen ilaa inta laga gaaray sanadka 2008 waxaa xanuunsatay gabarteeda ugu weyn. aad u xanuunsatay xanuun oo caadi ahaynin. kadib Elizabeth waxay bilowday inay ooydo. waxay tiri Kristen iga dhimatay marabi, Michael asaas iga dhintay, isbitaal ii geeweysay, hadda Kristen asaas iga dhimato, anaa isdilaayo, I don't care, marabi noloshaan. wuxuu yiri maya khalaas anaa geeha isbitaalka adi bis kaale caawi ila qaad. gabartii way basuuxdaba way isla qaadeen muddo 22 sano waxay ku xirneyd meeshaas gabarta Elizabeth naftirkeeda. gabarteedana weligeed maba arkinba adduunka banaanka, telefisyoon bis ay haysteen, telefisyoonkaasi ka arki jirta laakiin muddo 24 sano Elizabeth ma arkinba dabeel iyo leer iyo xidig ama qorax waxaasoo ma arkin. marka aragtay way yaabtay, wasku naxday. bacda aabeeda ku qaylay wuxuu ku noqo gudaha ku noqo anaa geeha gabartaade. wuu wadiyay warqadna qor inay gabartaada xanuunsan tahay. warqada boobsiis ku qortay u dhiibtay isbitaalkii aadi. isbitaalka markuu aadiyay gabartii walaalaha waxa la haytay xaaladeeda caafimaadkeeda sayta kaliya istaaga oo gabartii miskiinta labada kaliya istaagay. kaliya waxa la isla in la dhaqo waayo daqiiq ma lagu bilaabay. inta Kristen kaliya loo dhaqaayay doctoriinta waxay bilaabeen inay su'aalo badan weydiiyaan aabbaha maadaama asiga kaliya joogo. waxa uu yiri asiga aan wax ma ka ogi gabartayda intaasoo sano 4 sano mis arkin way maqneed 3 cunug inoo keentay oo mid kastoo xaaladiisa kala ka daran yahay ma ogi xaaladeeda iyo waxay ku sugan tahay baan ma la socodin. okay taas miyaa dhaheen waxay sameeyeen way faafiyeen gabartaas in loo baahan yahay oo xaaladda in laga rabo in laga wareysto xaaladda gabarteeda. Elizabeth loo diray baafin oo lagu raadinayo Elizabeth inay timaado sida ugu dhaqsiyaha badan haday rabto inay caawiso gabarteeda oo aad u xanuunsan. Elizabeth markay aragtay baafintaasi televisionka ka aragtay raadiyoona ka maqashay aabaheeda ku ooysay ku tiri aabo bariya hal cunug iga dhintay gabartan iga dhimanayne igay aniga wax ma sheegi doonin. wuxuu ku yiri okay waa ku geeyaa laakiin waxa sheegin ilmahaagana waxa loo geeyaa hooyada hayso adigana isbitaalka suraacayna adigana waxa sheegin oo wixii oo beebenta maahane inaa maqan tahay meelahaas ku maqan tahay meelahaas iskaaga baashaaraysay oo noloshaas kala mashquul iskaaga ahaydba hayay tirsan sameeyay. isla markay isbitaalka galeen iyada iyo aabaheed Elizabeth si gooni ah loola baxay. askarta boores la bilowday waxay dhaheen saa u gash ilmahaaga sidaas hooyo fiican ma tihid saas ma tihid. iyada marabin wax ka jawaabto shiba ahayd iyada isku dayaysan ka aamusnaato ee la jawaab siinin. waxaa yiri waxa ku haysta noo sheeg. waxay tiri hay wax kasto ay mid sheegaan laakiin ballan iga qaadayno aniga aabay mar dambe is arkayna. waxaa yiri ballan waa mar dambe ku arkay. wixii oo dhan u sheegtay waxay u sheegtay 24 sanadood isticmaalayay oo todoba cunug ka dhaliyay oo labo mid ka dhimatay oo midna hadda geedka ka xanuunsan. waxay u sheegtay nolosha oo warafaadka badan ee ku soo nooleed meesha urka badan ee cuntada ku cunayeen inay iyada isdaalisa kaligeed oo hal qof caawin asiga naftirkiisa u imaano caawinin inuu mararka qaarkood oo ciqaabi jiray oo ku jira korontada iyo biyaha iyo cuntadaba hadii lacala ay ka dareemo inay qayqayliyeen ama codkooda kor u qaadeen soo jiraanka u maqleen. so nolosheeda ugu sheekaysa dadku way naxeen way yaabeen waxay isdhaheen no way waa ruusu waaye. laakiin isla markiiba aabiyaa lasoo qabtay aabaha jeel la geliyey. asigoo jeelka ku jira waxaa la tagay gurigoodii sida meesha ay tilmaamtaa la aaday exactly sa u tilmaamto waa meel yariisoo xataa
ay xataa ku noolaa karin oo urka weligeed meelay qorax soo kaalin waaye oo jeermis kasta ku dhex nool yahay meesha haddii la arko meeshay ku nooleed bili-aadan oo ku noolaa kale intaasoo sano ma lasdhihi karo anyway markii la ogaado waxaasoo dhan aabiyaa la qabtay waa wuxuu yidhi aabihi maya anay iida ahayn iyada waas ogeen iyada wuxuu ahaa contract ani iyada naga dhexeeye iyadaa ii ogoleed iyadaa i rabtay ani keligay waxaas ma samaynin iyada geedkii xoog anima isku dayin wax been u kala guriyey so wax been u kala gurayay maalin maalmaha kamid maxkamadda usoo fadhiistay markuu maxkamadda usoo fadhiistay wuxuu ka aragay meel fog wuxuu ka aragay gabartiisa iyadoo fadhido dadka dhexdooda oo isku naxiyey oo isku yaacay oo kala batay oo wuxuu sameeye waaye markaas kadib wuxuu sameeyey runtuu sheegiyey wasku ooy wuxuu yiri Elizabeth wax qalad ma samaynin Elizabeth iskuma dayin Elizabeth aslan ma ogolaynin aniga xoogay ana xoog ku xaday ana xoog sumeeyay oo suuxiyo markaas suuxiyo aagiliye meeshaas oo dhulka hoostiisa Elizabeth dambi ma laho dambiga dhan ana u saaran yahay laakiin ani waxaa rabay inaan dhadhamiyo faakihada oo muharramka ah oo la xaraantinimeeyay dhadhankeeda inaan ogaadaa rabay sidaas awgeed u sameey laakiin ani hadda waa ogaa inaan ka daranahay waxaan leeyahay gabartayda raali iga noqotay oo faamiligayga raali iga noqon leeyahay iyo ilmahayga oo ii dhashay gabartayda dhashay ilmahayga kalena oo aniga dhalay oo hooyadeed dhashay iyadana waxaa leeyahay raali iga noqo naagtaydana Rosemary waxaa leeyahay raali iga noqo kadib waxaa lagu xakumay Joseph muddo oo forever sijin abadi waxaa lagu xakumay inuu ku xirnaado sijinka ilaa intuu ka dhimahayo oona cafisna jirin oo xataa uu samay karin istinaaf ama ricfaan oo lagu noqon karin oo khalaas go'aanka ugu dambeeya tahay inuu sijinkaas ku jiro forever laana dambiye badan oo galay gadaalna waxaa laga ogaaday inuu asaga hore naag u xoogay oo markuu naagta xoogay Rosemary ee la ogeedba arrintaasna ahayd intoona ilmo dhalin oo qaanuunkana oo beledkay ku nool yihiin waxaa uu falaa inuu 15 sano kadib waxa dembi gashay inuu kaa masaxmaayo oo dembi la'aan aanu ka haysin taas waa waxa oo kharibta adduunka oo dhan hadii la ogaa lahaa ninka inuu hadda ku hor naag soo xoogay waa laga shaki lahaa markii gabartiisa la waayay laakiin lama ogaanin because way ka tirtiranta sijilkiisa wuxuu noqday nin nadiif oo weligiis dambi galin camal hadda wuu xiran yahay ayakii ilmihiisana wax askartiya waxay u qortay in isbitaal la geeyo oo la daaweeyo nafsiyan iyo jasadiyanba xanuuno badan ku soo kaceen oo ay iskaga adkaysahayeen ugu dambeys Elizabeth iyada iyo hooyadeed iyo ilmaheeda oo lixda cunug waa iswada raaceen waxay degeen magaalo kale oo lagu aqoonin magacyo cusub ay samaysteen asay dadka ugu fogaadaan oo social media ugu fogaadaan oo loo caynin oo wax loo dhihin because already ay ka nafsiyadooda yani tacbaan iska so dawladana way ilaalisaa lacag gooniya la siiyaa dhib badan ay soo mareen so taas waa sheekadeena maanta saas inta ku eg tahay hoos igu soo qaraa saa u aragtiin iyo xukunka oo lagu xukumo aabaha ku wanaagsan yahay mase maxaa adiga ku xukumi lahayd haddii adiga qaadiga ahaa lahayd fikradihiina hoos igu soo qaraa thank you